booliska dalka Ingiriiska ayaa sheegay inay qiimeyn ku sameynayaan macluumaad cusub oo la xiriira duulimaadyo gaar loo leeyahay oo lagu tuhmayo in lagu soo qaaday dhibanayaal la xiriira ganacsadihii Mareykanka ahaa ee dambiyada galmada lagu helay Jeffrey Epstein. Wararka ayaa sheegaya in dokumentiyo dhawaan la shaaciyay ay muujinayaan in diyaarado gaar loo leeyahay ay si joogto ah uga degi jireen ama uga duuli jireen gudaha dalka Ingiriiska, gaar ahaan garoonka Stansted Airport. booliska gobolka Essex Police ayaa xaqiijiyay inay hadda qiimeynayaan xogta la helay si loo ogaado inay jirto caddayn ku filan oo keeni karaysa baaritaan rasmi ah. Ilawareedyo ayaa tilmaamaya in 100,000 oo dokumenti oo la sii daayay oo ka yimi waaxda cadaaladda Mareykanka, kuwaas oo muujinaya dhaqdhaqaaqyo duulimaadyo caalami ah oo lala xiriirinayo Epstein xitaa kadib markii hore loogu helay dambiyo la xiriira ka faa'iideysiga carruurta sanadkii 2008. Ra'iisul wasaarihii hore Ingiriiska Gordon Brown ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo sameeyo baaritaan buuxa si loo xaqiijiyo waxa dhacay iyo in dad lagu soo geliyay dalka Ingiriiska si sharci darro ah. Booliska ayaa carabka ku adkeeyay in qiimeynta xogtan aysan weli ka dhigeen in baaritaan dambiyeed si rasmi ah la furay, balse ay tahay marxalad hordhac. Wararkan ayaa ku beegmaya xilli cadaadis siyaasadeed iyo mid bulsho oo sii kordhaya, iyadoo la dalbanayo hufnaan iyo isla xisaabtan ku saabsan safaradii iyo xiriiradii caalamiga ah ee uu sameeyay Epstein.